safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Danjire Donald Yamato war uu soo saaray waxa uu bogaadiyay hanaanka dowladda Soomaaliya xilligan ay u wajahayso wada hadallada lagu wado inuu ka furmo magaalada caasimadda ee Muqdisho una dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo waliba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. qoraal kooban oo lagu faahfaahiyay barta Twitterka ayaa waxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ugu baaqday hoggaanka dalka iyo maamul goboleedyada inay la yimaadaan dabacsanaan siyaasadeed iyo isku tanaasul. dhinaca kale waxay safaaradda Mareykanka ammaantay doorkii hoggaamineed ee uu la yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor. hadalka safaaradda Mareykanka wuxuu ku soo aadayaa xilli Muqdisho ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo waliba Saciid Dani, isla markaana ay qorsheynayaan inay la kulmaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si looga hadlo guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka. Mahad Mutawakkil, Hon Cable TV, Muqdisho. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u labisanaa, isku midna waanu nahay. aniguse waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. war ma ahayn run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha. maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.